السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta aan jeclahay. Halkan caawa waxaan idinku hayaa xigmadooyin ilaa 5 gaaraya. Xigmadahaas oo aan isdhihi karo noloshaada waxa ay ka bedeli karaan. Waxaan rajeynayaa inaad dhegeysan doontaan. Xigmadeena koowaad ayaa ah xigmad aad u dheer balse macna xambaarsan. Dadka qaar ayaa waxay noloshaada ugu soo biiraan in ay waqti kugu lumiyaan. Waqti lumintaasi waxay noqon kartaa in adigoo dareensan waqtiga laga luminayo haddana aadan ka dabageli karin lama rabo midaas. Waxaa la rabaa inaad xakameyn karto naftaada, wax walba oo ku xiisgeliya inaad qaadan karto. halka dadka qaarna ay noloshaada ugu soo biiraan inay ka xanaajiyaan haddii naqan lahayd waxyaabahadan ku qanacsaneen inay sameeyaan. halka dadka qaar ay noloshaada ugu soo biiraan inay wax ku taraan. waxtarida ayuu nooc ayay noqotaa haddii ay noqon lahayd maal iyo haddii ay noqon lahayd garab istaag. laakiin waxaa jira muhiimadda ayaa ah in saddexdoodaba aad dabeecad u leedahay, balse haddii aadan lahayn midkood waxaa xaqiiqa inaadan isfahmaynin. haddii kii waqtiga kaa luminaya aadan isfahmaynin, haddii kii waqtiga kaa luminayay aadan dabeecadiisa garanaynin, waxaa laga yaabaa inaadan isfahmin aan isku xildheeraan. waxaa kaloo jiro midka kaa xanaajinayay ee noloshaada ugu soo biray inuu kaa xanaajiyo, asigana haddii aadan garanaynin dabeecadiisa aadan ka bogan karin xilli walba asiga waqti walba ka khasaaraya aadan iska fiirin karin, ayadana dhibaato ay leedahay. halka dadka qaar ay noloshaada ugu soo biray inay wax ku taraan, laakiin balse dadka wax la taraya aysan fahmi karin, aysan dabeecad u lahayn in ay fahmaan. ayagoo duruuf kasta haysata ayaa haddana aysan fahmaynin midaas ayaan dhihi karnaa wax walba ayaan u sababeyn karnaa. yacni xigmadan ayaan ka faa'iidaysanaynaa. marka xigmadan guud ahaan waxay ka hadlaysaa qofba noocan uu ku baran karo, qofba noocan uu kula hadli karo, iyo qofba noocan aad ula macaamiloon karto. waayo Soomaali ayaa hor u dhahday qof walba siduu yahay ayaa lagu dhaqaa. xigmadani labaad ayaa ah haddii aad leedahay cadow badan ogow waxaad arkaysaa caqabad badan. yacni qofka hadduu cadow badan leeyahay oo yacni meel walba uu ka cabsanayo ama cadowgaaga jooga uu isleeyahay, waxaad arkaysaa in badan qofkaas inuu caqabad dareemayo oo meelo kasta uu mari lahaa uusan mari karin, waayo cabsidaas ama cadownimadaas dadka u qabaan uu ka cabsanayo. yacni waa xigmad aad u gaaban haddana micno xambaarsan. xigmadeena saddexaad ayaa ah haddii cabasho badan yahay miskiinka ogow waxaa ka cuqdad badan kan taajirka ah. yacni waxaan wada ognahay dadka miskiinka ah inay mar walbo ay naqnaqdaan, meeshay ka imaadaan ay ku naqnaqdaan. yacni kan taajirka ahna oo isdhaha ninkan yacni muxuu kugu soo naqnaqanayaa, maskaxdiisa ay si qaldan u fikirto oo yacni sidaas cuqdad uu ku qaado ayaa dhici karta. waayo maxaa dhacay? lacagta ayaa xinaasaysa, mana lahan qalbi jilcan, mana lahan yacni lisaan nadiif ah. xigmadeeni afraad ayaa ah haddii aad tahay qof qurux badan ogow waxaa jira wax badan oo kaa maqan. yacni qofka ilaahay qurux uu ku manaystaa, qofka ilaahay la doona ayuu siiyaa quruxda, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ka maqan qofkaas quruxda badan aad arkayso. waxaa jira dadka bini'aadinka ah misina waa sidoo Alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay qofna ma dhammaystirna ilaa uu nacayb noo leeyahay. yacni ma jiro maanta dunida kuma noola qof dhammaystiran. haddii adiga aad qurux badan tahay qof baa foolxun, haddii aad maanta dabeecad wanaagsan tahay qof baa dabeecad xun. yacni shantaas farood ma sinna. xigmadani shanaad ayaa ahla midda ugu dambeysay barnaamijka caawa.
haddii aad cilmi badan tahay, ogow waxaa jira kumananka cilmi badan. sidaa darteed waxaa jiro in badan oo aad ka cilmi badan tahay, laakiin waxaad ogaataa in badan kaasii cilmi badan tahay. sababtoo ah waxaa jira wax aad taqaanid aanan qof kale aqoonin, wax kale qof kale ay yaqaano adiga aadan aqoonin. taas ayaa ku tusi karta ama aad ka dareemi kartaa inay jiraan dadka aqoon sareeya ama dadka aqoon badan. waxaan jeclahay inaan caawa halkaas kusoo gabagabeeyo shantan xigmadood. waxaan jeclahay qofka bini'aadanka inay taabanayso. waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabta aan jeclahay. halkani waa Cali YouTube. fadlan si mar walba muuqaalka uu kusoo gaaro, subscribe leh, kambalaalkana furo, like iyo share na kama marna. asxaabta aan jeclahay waxaan idin ka tagayaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.